سجال برود إنها يجيل بكم يبان أنا حاول أدري ضدك قاسية لكن قف اللي بالليمت يحدو قالوا لي حكم يكره ميدا كله دبل لما شدنا دقيقة عن محوية هاي دجال كان بسند مسعودة وهنتاني برورتاني محاية هاد هذا الكي مسبي حسه ما يلابين رجع دليليو دجال هو صعونية إلى تاكس سومالي هذا لقى سعر عذو هو صعونية أنتوا دورة هقاطو وقت هقاطو ديك رجع هقاطو حول هقاطو دجال هو صعونية دخلوا حرين أما حد أنت صوّا غيروتان محاهبل الكاهبل واحد ولا حكومة ولا يقانا إنا يرى شرعنا فلسطين دين بحنا يدين عاي ما أنت محاكا كسر قايلنا يا وفيوس دي كذا سنة باكرامة ولادي أو تعيشين أو يدين حكومة أو شرعنا كعاي وفلسطين كعاي عقيبة من الهدين وكرامة من الهدين وشرف من الهدين هدية يدينا معمر كاسبول لنا إلا الحساب تمنا كلية وحى كفلا أيضا بوق لنا الجلين اللي يراه دقدة سجرعد وحرنتهاي مراكبنا كمسو حرن كرت صبحي دالين كينا عن باشا أنسار إني إيه أن دقدة ستي الرد بدنو هرتي يناقة بدنو كالحدايا لو شقيستو أي أنا جالنا عساها يجي يفترض إذا كم مشغول صناعيا هاي السروال بعد هو اللي في حرنتها يكيشير يجي بكتب الصبح لها برتي أن جينا بهرت تشوك تاسومالله وحب فيسي علينا وراسن وحب كان بين علينا قدوني وحب قوض مقشي وحنا هو قمية علينا قدقن وحب أفحمية فلقات الله ينو قدرين وحب علينا من الشيء جنن وحب ليساكين وهي وحب المدى يحاسك طول بيضان لهين إيه البيضان لهين عد بيضان لهين عيرس بيضان لهين إيه الدنين هجر دامدي ندوي وقم قيها وحب عليه هو ساسين أنا إيدي شيء قالت كي وأنا قالين قليها ندك تبري قبل كسول وحي هاد مركي يراهدين وحن هيل كسوجينا سواء قرنا ملا دبطاء ورسنجلي وشتاد حشة iyo majarteen oo ku fiican dhanka sameynta sabaayada waxaana ku sheegayaan hil hartina waxa ku filan kaliya markay noqoto qabiil habar jecel hadii maanta habar jecel lagu soo fasaxana ilaa boosaaso way sii cirsan karaan habar jecelo bari culustaas iyo hil harti wuxuu ku sheegay saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan hala figeeyo si uu meel fog gaaro dawladdan hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxa la timid muddaxleedkan labaad qorshayaal ay ku dhiiran waayeen madaxdii iyo dawladii isaga ka horeysay madaxdaasi dawladahaasna dawladda hadda hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxay dheer tahay ku dhac iyo ku dhiirasho waxay ku dhiiradeen hadda kuwa jooga madaxda hadda joogta oo hogaamiye xasan sheekh maxamuud go'aamo markaas adag tahay qof mas'uul oo sanadkan jooga inuu ku dhiirado waxaana kamid ah go'aamadaasi ay ku dhiiradeen madaxda hadda joogta oo hogaamiye xasan sheekh maxamuud la dagaalanka al-shabaab iyo la dagaalanka musuqmaasuq waayay dambana maxkamadaha ku yaala gobolka banaadirna waxaad ka arkayseen ayadoo markaas la xisaabtamayo mas'uuliyiin badan oo markaa lunsaday dhaqaale fara badan ayna ka baahan yihiin dhaqaalahaasi shacab Soomaaliyeed haba ugu darnaadaanba shacabka la dala dhacaya abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya labadan sano hadda ay joogaan dawladdan hogaamiye xasan sheekh maxamuud wax qabadka ay muujiyeen ma aysan qaban 5 sano ay joogeen dawladda iyo tiimkii farmaajo bal iska dayn wax qabtaan kuwaasee waxay la dagaali jireen iftiinka yar ee ka baxa koonfurta Soomaaliya wax qabadkaana waa mid uu ku mutaystay xasan inuu cadow xulufaa ku yeesho gudaha Soomaaliya tareenkii la dagaalanka musuqana markaan wuxuu soo baakintay degadaasi garacad oo markii hore maamulka Puntland ay ku sheekay jireen degadaasi in lagu dhisay si isku tashi bulsho ah laakiin hadda la ogaaday degadaasi asalkeeda lacagta lagu maalgeliyay in laga keenay xaraash la soo xaraashay dhul xiriye ciidan ah oo markaasi si sharci darro ah loo soo xaraashay lacag ka badan 20 milyan dhulkaasi la siiyay waliba ay siisteen dad gaar ah dadkaasi gaarka ahana lacagtaasi qayb kamid ah waxay ku maalgeliyeen degadaasi garacad waana sababta ay dawladii farmaajo ay uga meeraysan jirtay inay dhagax dhigto degadaasi garacad laakiin dawladdan hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxay ku dhaceen ayna ku dhiradeen in degadaasi garacad lacagta markii lagu maalgeliyay asalkeeda hore ay ka timid hanti markaas ay lahayd dawladda Soomaaliya marka hadii ay lahayd hantidaasi dawladda Soomaaliyana degadaasi sheerkeeda ama qaybteeda waxay ka dhaxaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay tahay hanti markaas ay leedahay shacabka Soomaaliyeed markaana way soo dhamaatay in cadeeskii iyo qarracdi hadii shalay lagu heli jiray in cadeeskii qarrac maanta waxa taala isla xisaabtan hadii ay diidaan maamulkaasi Puntland in la xisaabtamana kaliya waxa ku filan ayadoo buuq la gelin in la yiraahdo degadaasi garacad way xiran tahay maraakibna kuma soo xiran karto intaas kaliya ayaa ku filanba maanta waxa ku beegan maalintii ay sheegtay wasaaradda isgaarsiinta inay gabi ahaanba hawada Soomaaliya ka saari doonto adeegsiga ababka Telegram TikTok iyo abka kale ee qamaarka magaciisa la yiraahdo OneXBet laakiin maanta oo ah maalintii ay u asteysay wasaaraddaasi inay joojinayso ababkaani ayaa go'aankaas waxba ka hirgelin ilaa haddana sidii ayaa loo isticmaalayaa ababkaasi ay sheegtay inay joojinayso marka waxa la soo oran karaa wasaaraddaasi xukuumadda Soomaaliya marka hore ayay degdegeen waxayna sheegteen awood aan gacantooda aan ku jirin midaasna waa fashil kale oo ka yimid xukuumaddan maadaama go'aankaana ay hore u shaaciyeen ay ka dhabeyn waayeen go'aankoodana uu fuli waayay maanta
markaan haddaan eegno gooja cadde goobtii dhimashada markaan wuxuu muuqataaba inay soo afjarantay beentii iyo faankii faloogii lagu maaweelin jiray shacabka reer Laascaanood shacabkaasna markaani waxaa soo kartay beentaasi ayaga lagu maaweelinayay 8 bilood ugu dambeysay beenihii ugu weynaa bari culus ay ku maaweelin jirtay shacabka reer Laascaanood ee qaxay waxay ahayd Somaliland waxay ku madhan ciidankeeda gooja cadde Somaliland dhaqaalaheeda wuxuu ku burburay gooja cadde Somaliland madaxdeeda waxa lagu soo oogayaa dambiyo dagaal waxaana la saari doonaa maxkamadda caalamiga ah Somaliland beesha caalamka wuxuu ku amartay inay ciidankeeda ka qaataan gooja cadde intaasi kuwa kalaba waxay kamid ahaayeen beenihii bari culus ay u sheegi jireen ayna ku maaweelin jireen shacabka masaakiinta reer Laascaanood oo markaa ay ka barakiciyeen magaaladoodii maantana waxay u muuqataaba beentaas inay soo afjarantay isla markaana dadkaasi shacabka ahaa ay ku fahmeen beenta iyo faanka ay halkaasi ay la tageen bari culusta iyo kuwa kale huwanta ah waatana mid kamid ah dumarkii reer Laascaanood markii horeba qayb ka ahaa dagaalkaasi 8 bilood kadib maanta xaalkeedu waa sidee 300 kun oo qoys baa banaanka inaga daadsan oo banaanka u baxay magaaladeennii baa duntay kumanaan baa inaga dhaawacmay kuwa xangulayaashu go'een oo naafoobay kuwa agoomoobay gabdhaha asay qaaday intuba xabaaleeninka loo kala tagay cid leh ee ku harayso ee saameynayso ay gaarka ku tahay waa inaga hartibaana oo oolin qabla laxbaysan oo oolin daarood baysan oo ool 9 bilood dadkeena barakacay banaanka jooga waxay ku sugan yihiin isay yihiin iyo hooy inay nolol maalmeedkooda ka siin karaan cid Allah leh iyo cid og ama ka warbixin kartaa ma jirto ka garaw soo qaxay iyo ka burtina soo qaxay iyo ka gaalkacay soo qaxay iyo ka qarnow qaxay ninna guri bilaash lama siinin nin waliba kiraa laga qaadaa kiraa laga shubaa guri kiraa badaganya wali miyaad aragtay qof dhulbaanta ay TV soo istaagay lahana la caawiyo 9 bilood indhahayga ilma kama iman أنا حوالي ودري دتك كواسية لكن قفل بالليمت يحدو قالوا لي حكى ما ينكروا إن قد يديني يدتك إني بركعي مقالد إني قبتي يكمان كن عرفت كواسني لا سياسة ديو وسياسة اللي قد حراديو والله بهالكيريا بلان بكتمي عد أنا قاعد يقول قبستاني قاعد يقول ماكتاني ترى هذا عداسي وبلطي سياسة بان لاسعانود كدحرادين سياسة بان كلا سعون waxaa sa'al leeyahay uu yahay inuu daacad ka yahay inuu laascanood ku dagaalamo oo hadii nin dagaalamay ciidankiisa dagaalamay oo dhintay oo jifadiisa dhowr iyo 10 laga aasi u jirana uu isaga yahay nin hubkiisa la qabsaday ama la gubay haduu jirana uu isaga yahay kuwa hil harti loo farooga soo duwaan ogahay oo aan baabuurtooda sharciyada laga dejin sharci ka digin waxaan leeyahay dhulbaanta waxa lama saarnaado xabaaliye ninkii loo kala tig cida agoomowda waa dhulbaanta hooyada goblantay waa dhulbaante gabadha asayda qaaday waa dhulbaante kuwa banaanka jiifaa waa dhulbaante kuwa xangulayaashu go'een waa dhulbaante waxa laga yaabaa markay inaga 3-4 qof inaga dhimataa 4 ama 5 kale hartiga kale ka dhinta ama 3 ka dhimataa cid culayska iyo dhibaatadii maxaa sheega ay ku dhacayso hoogiyo boo waa inaga cidna ha isku halaynina cidna ha suginina waxaan qabaayo aaminsanahay sida harti sabaayada inoogu soo dubayay hadii sabaayada loo soo dubi lahaa 26 عشان meeshaynu geynay Soomaaliland bay joogtaa 26 cisho dagaalku maalin ku soconayay in cambaasho la saaray subaxii in cambaasho la saaray halkii aan geynay subaxan u shisitay lahaa kay shirigiiba ka timi subaxan u shisitay meeshii aan geynay Soomaaliland ayay horta joogtaa mitir hore looma dhaqaajin hadii hartii isku yimi iyo hadaan isku imanba inta magaalada waa la qaraacayay inta dagaalka inaga dhimatay inta madaafiicda ku dhimatay baa ka badan waxaan idin leeyahay aniga horta Facebook maanta ay ugu dambaysa anigoo Facebook laascaanood gooja cado oo Soomaaliland laga saaro mooyee gooja cado isaaq laga saaro mooyee Facebook qadiyad laascaanood leedahay oo dambe oo aan kaga soo hadlayo horta maanta ay ugu dambaysa kulligeen waxba fiisiyaan leena ugu raadsan waxba campaign leena ugu dooni waxba qawada maqasho waxana ha u qabanayaan leena kaga dhigin waxba yar afxumiya aflagaada leena ugu darin waxba yaan leena mana sheeganin waxba yaan leeseekin oo hin waxba yaan ilmada ay xaaska tol baydaan lahayn ehel baydaan lahayn cid baydaan lahayn ciirsi baydaan lahayn ina dalinaha gardaamadiinu dubay ugu maqan yahay waxba yaan leeydi hoosaasin ana idin sheegaya
DB Wall baan ay arki karin imaaraad baan ay arki karin Muuse Biixi iyo Siciidani taleefka isagama baxaan waa saaxiib waa walaal waxba yaan la suuqin qaybin waxba yaan qolana ina caayid oo anagdi ku oran kan iyo keer waxaan la yaabaa wax la wiil raaxa joogto ku dabaartaa wabi ma oga waqtiga dhacay nin ay si ku dhex jira oo aan ka qasnayn oo bilaba ogeyn oo cad inta cadaaday creams mariyo buurtay oo kula talbaan kula ahay waxa ka meero soo fadhiya wuxuu ku qoraya oo idinku Soomaalidan keensan 15 sano ka hor Soomaaliland soo idinku maydaan yar maana keensaday misaada ay wareejiyay anyway qofka dhul bahante ee Puntland ku amaana ee yiraahdo thank you iyo waxbuu qabtay oo doqona weeyaa adeer Puntland wixii ay qaladay qayb yar oo ka mid xitaamaysa sixinin aynu saaqnaahna wadnaga adkaateene oo jifi anagoo ahba naga adkaateene ilma adeerayaal oo dhulkayga nooga baxa anagoo bilaa hartiya idima rabnay naga baxaan dhiraahan qofku hadii laga adkaado inuu isdhiibo ma xuma horta qayb ka mid ah qolyahan degta Laascaanood waxa la geliyay dagaal aysan ogeyn halka ku dambeyn doono hadii ay raaci lahaayeen shalay talada Mahad Cambaashe xaalka maanta ay ku jiraan kuma aysan jiri lahayn laakiin waxay kala garawaayeen cadawgooda iyo saaxiibkooda halkan waxa ka dagaalamaya waa qaran jiray 230 sano maantana waxay la tahay inay u adkaan karaan qarankaasi jiray 230 sano hub markaas lagu keenay xagbad bariyo iyo wax la mid ah midda kale dabba lama shidin qiiqaan muxuu yahay dagaalkan ba sanad ma socdee oo hintani barortaani maxay ahayd hadalkii Muuse Biixi ma ilaabeen qoomkan hadda ka dagaalanta Laascaanood ragga dheeldheelayo dagaalku waa soconaya ilaa taaka Soomaaliland laga saaro cado wuu soconaya intuu doona ha qaato waqti ha qaato dhiga ragga ha qaato xoolo ha qaato dagaalku wuu soconaya dadka xoreyn qaladkii ugu wanaag galeen qolyahan degta bariga gobolka Sool waxay ahayd markay yiraahdeen waxaan hiil ka sugeynaa Sawaqroon Male dabata ah Warsangeli oo shita dhuxusha iyo majarteen oo ku fiican dhanka sameynta sabaayada qoom aan lagu talagelin dagaal shaqadoodana aan ahayn ayay wax yiraahdeen oo soo heliya hubkii yarka ahay gaadiidka wateen waxa lagu furtay maraagay soonaheeda maanta waxay laabanayaan ayagoo gacanta aan waxba ku hayn dagaalkan lagu sheegayna ma ahan in la soo qaato kaliya hub iyo gaadiid ee dagaalku lagu sheegayo waa haybad qofka bini'aadanka Ilaahay ku beero iyo geesinimada waxaana ku sheegayaan hil hartina waxa ku filan kaliya markay noqoto qabiil habar jecel hadii maanta habar jecel lagu soo fasaxana ilaa Boosaaso way sii cirsan karaan habar jecelo bari culustaas iyo hil harti waxay ku sheegeen